Sheikh Ali waxa uu ku hoos dhintay dawladda Soomaaliya ma anaguna uma adkaysan karno maanta boolis la isku halayn karo qofka maanta qofka booliska intuu u yimaado waraaqda u keeno saldhig oo yar aadi kara waa qof ma jiro lama aadi karo la iskuma halayn karo qofka maanta la wadaado loo yeeraado la yiraahdo saldhiga laga yara saldhigu waa meesha Sheikh Ali la geeyay haddayse dawladdu jawaab cad ka bixin waxay noqonaysaa qof walbaaba inuu qorigiisa soo dhawaysto markuu qof boolis u joodana nafta shiido ilaa wixii marna waxa la miskiin loo jeer waxa la gol laga qadino waxa ogaata dawladda haddayse ka jawaabin arrintaas boolis la isku halayn kariyo saldhig la isku hakayn kariyo maxkamad la isku halayn karo gobolka mudug kama jirto dawladdu hadday sidaas raalli ku tahay dadkaas dugaaga ah oo ay soo direen dadka haldoorka gobolka mudug ka ahaa xariga iyo dilka iskugu daray hadday dadkaas madax u yihiin dawladda ma jirto aan tashano aan oranno ordaha naga taga haddaysan naga tagin gacnaha iyaga aan iskaga diro raggii weydiiyey waa nool yihiin ma cararin waa joogaan waxa laga xukumaa iskool taliska booliiska Soomaaliyeed ayaa laga xukumaa iyaga laga soo diray ayaga yiri taliyaha meesha ugu sareeya adduunka sharcigu wuxuu dhigayaa booliiska iyo militariga sarkaalka ugu sareeya meeshaas inuu mas'uul ka yahay waa laga wareejiyay waxa la yiri waa ka madax banaantahay dadka soo gad dadka lacag soo aruuri ayaa la yiri wax kale to kuma dhiman Sheikh Ali lacagtaas iyo waxbuu sheegi doonaa oo waad ka warrami doonaa dhibka aad u geysateen ayaa lagu dilay ilaahay waxaan rajaynayaa in uu ilaahay baras iyo juubdaan iyo cudur aysan ka kicin wixii ku lug lahaa hawlahaas iyo wixii fududeeyay inay ku dhacdo waxaan u baaqayaa odayaasha iyo culimada ku nool magaalada haddaydan adigu u talin haddaydan iska celin maalinka leedin laayay maanta ma ahayn maantii qorqor leedin soo dhisay bay ahayd maalinkii ninkii la rabo la soo dirsaday oo xoog lagu dhisay ayay ahayd maalinkaas leedin laayay barnaamijyadiina in la laayo maalinkaas lagu tala galay markaad iska celin weydeen markaad ka gadoodi weydeen markaad ka tashan weydeen waxaan idin leeyahay degdeg isugu imaada wixii qorqor soo dhisay ayaa la dilay oo Sheikh Ali dilay ogaada meel kale kama imaan wixii kale soo raacay waxa weeye waa xijaar iyo ragiisa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un maanta ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka oo dhan waxay u tahay maalin farxadeed reer mudug laakiin waxay u tahay maalin murugo magayadii baa nala ka laayay waa nala ka xiray xuquuqdii bilaadanimo dhan baa nala ka wareejiyay meydkeygii baa bannaanka yaalla waxaa nala ku dilay awaamiirtii dawladdu bixisay waxaa nala ku dilay calanka hoostiisa waxaa nala ku dilay shaatigii dawladda waxaa nala ku dilay nimankii sheeganayay inay yihiin amniga oo Soomaaliya ay ku sheegtay dad amniga ilaalinaya inay yihiin waxay xusheen dadkii dadka ugu habboonaa in la ilaaliyo waxay diideen in waddankan mudug la yiraahdo oday ka jiro waxay diideen in culumma ka jirto waxay diideen in maamul ayagana aynu ka jiro waxay diideen xuquuqdii bilaadanimo oo dhan waxayna marinayaan sida xoolihii inayna dilaan oo naqashaan waxayna marinayaan inayna gataan waxayna marinayaan intii ay doonaan inay dib u dhigtaan waxaan u taaganaa maantay murugada dilkii Sheikh Ali Dheere oo ahaa nin 20 sano iyo wax ka badan ka shaqaynayay dadka ugu jilicsan oo la yiraahdo yatiinta oo soo koriyay kumaankum dad gaaraya waxna soo baray Soomaaliya oo dhan ay madax ka yihiin waxana maanta ka faa'iideen dadka Soomaaliyeed oo dhan dadkii caynkaas ninkii ayay ayaa loogu hormariyay xabsiga waxa loogu hanjabay in la xirayo in la dilahayaa loogu hanjabay ka bacdina waa la dilay waxa dilay nimankii la yiri waa lagu daba joogaa taleefanka hadday ka qabtaan hore u soo bood hadday ku yimaadaan raac awaamiirta dadkii bixiyana waxa weeye nimanka amniga halkan loogu soo diray oo dawladda federaalka u soo magacawday
oo mar sheegtay inay yihiin ciidamada la yidhaahdo CID oo ummaddan oo dhan intooda badan diiwaan geliyay waxna kaga aruursaday markii ku xigtana yiri argagixisaan la dagaalamayna annagu argagixisada hadda waxaan u baahanahay in loo macneeyo argagixisadu ma dadka culummada miya ma odayaasha ma gabdhaha ma nooca la yiraahdo argagixiso waxaan u baahanahay dawladdu waxay u taqaaneen noo macnayso ninka waa la dilay xaquuqdiisii baan rabnaa banaanba aan u taaganaa waxa weeye kuwa hadda xiran waan isleenaa caawi hamin dambu dilahayaa ninkii dilkaas iyo madaxda ka ahaa iyo ciidankiisu waxaan rabnaa reer mudug waa taqaaniin waa meesha Soomaaliya oo dhan ay ka halqabsato markii la yiraahdo adayga iyo fawdada waa ka soo harnay waa ka toobad keenay waxaan u garanay in haddana la kugu yaryaray war maxaad fawdadii u dayseen war waxaan rabnaa xaqayaga inaan helno war waxaan rabnaa dawladdu inay soo gurmato war waxaan rabnaa kuwan dawlad goboleedka lagu sheegayo oo booliska u gaarka lahayn oo CID u gaar lahayn oo ciidankoodii daafaha lagu aruuriyay oo hoostoodana ku qalanayo inay haddayna matalayaan degdeg noogu yimaadaan haddaysan matalayna aanu ka tashanno haddaad jawaab degdeg noo keeni weydaan waana taqaaniin ma nihin niman gacmo hoorsada laakiin kala dambayntaanu ilaalinaynaa maydkiina bannaanku yaallaa dadkiina waa tuban yahay jawaab baa laydinka rabaa amaasinta waxa maanta ku dhintay gacanta ciidamada booliska Soomaaliya dadkii ay meeshaan u keentay waxaana la yiraahdaa waraaba hadduu xaakim noqdo xooluhu xaquuq male isku mar hal cunuu leeyahay Sheekh Cali Maxamed Sheekh Cali waxa uu ku hoos dhintay dawladda Soomaaliya ma annaguna uma adkaysan karno maanta boolis la isku halayn karo qofka booliska intuu u yimaado waraaqda u keeno saldhigga oo yar aadi kara waa qof ma jiro lama aadi karo la iskuma halayn karo qofka maanta la wadaado loo yeeraado la yiraahdo saldhigga laga yara saldhiggu waa meesha Sheekh Cali la geeyay haddayse dawladdu jawaab cad ka bixin waxay noqonaysaa qof walbaaba inuu qorigiisa soo dhawaysto markuu qof boolis u joodana nafta shiido ilaa wixii marna waxa la miskiin loo jeer waxa la gol laga qadino waxa ogaata dawladdu haddayse ka jawaabin arrintaas boolis la isku halayn kariyo saldhigga la isku hakayn kariyo maxkamad la isku halayn karo gobolka mudug kama jirto dawladdu hadday sidaas raalli ku tahay dadkaas dugaaga ah oo ay soo direen ee dadka haldoorka gobolka mudug ka ahaa xariga iyo dilka iskugu daray hadday dadkaas madax u yihiin dawladda ma jirto aan tashano aan oranno ordaha naga taga haddaysan naga tagin gacmaha yaga aan iskaga diro sidaas nalama hor joogi karaan uma adkaysan karno annagu haddaanu nahay maaragtaa dad wixii raba lagu samayn karo markii la raba la afduuban karo markii la raba la xiri karo markii la raba maydkooda macilaa looga soo digi karo Sheekh Cali qof kaleeto shacab ah iyo beel gurigiisa intay ugu tagaan xaar tagaan magaca dawladda ku wacaan ugu soo baxeen wuxuu ugu soo baxay naftiisa ugu keenay inay ciidamadii sharciga gacanta ku haya dastuurka Soomaaliya ilaalinaya yihiin ma ay noqon dadka dawladdu wali kama ay adlin waxaan u joognaa wali inay raalli ka tahay daysa dawladdu si 24 saac wax jawaab ay iska bixin ciidamadaas dulmiga meesha loo keenay maxkamadda soo xirtada tiri waxa la leeyahay dadka lacag ka aruursanaysaa hadday raalli bay ku yihiin hadday saas raalli ku yihiin annagu raalli wama noqon karno kulama shaqayn karno kula socon mayno aqbali mayno haddaanu nahay dadka saas u daciifka ah dadka mooryaanta ah ee dhig mirtayaasha ah aan hoostooda ku noolaano waxay ila tahay annaguna waxaanu noqonnay wixii naloo maleeyay baan nahay waa nala daciifsaday waa nala hanjuubay waa nala dilay waxaasna ma aqbali kar reemadu haddaan nahay reemadu masaastaan kula noolaanaa nimanka dawladda shaatigeeda sheeganaya kula noolaan mayno aqbali mayno waa ka dagaalamaynaa shareecadda islaamka qabta inaana ducfi qaadan waxaan leenahay dawladdaas ma aqbalayno waa qoryaha aanu iska wareejinay iyo baabuurta aanu wareejinay iyo aqbalaadda aanu aqbalnay inaan ku hoos noolaano xukunka waa in dib looga fiirsadaa waa inaan la soo laabanaa hubka iyo gaadiidka iyo beel baanu ahayn beelaha kaleetana waan iska dhicin jirnay laakiin hadda cid beel annagoo dawlad sheeganaysa oo siday rabaan noo dilahaya siday rabaan noo dulminahaya siday rabaan noo xirahaya baana hadda waxaan hoos joognaa ma aqbalayno dawladda haddaysa 24 saac aysan ka jawaaban arrintaas
qolo walbaaba dawladda wixii ay ku wareejisay kalsoonida ay ku wareejisay maalka ay ku wareejisay canshuurta ay ku wareejisay hubka ay ku wareejisay waa inaan kala soo laabanaa waa inaan ka dagaalanaa ducfigaas iyo dulligaas dadkeena haldoorka dawlad dadka ahaa idihiisa lagu laayay ma aqbalayna waa diinay wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay sabir iyo imaan naga siiyo Sheekh Cali waa uu dhintay annaguna waa ka daba dhiban doonaa haddii aan la yidhaahdo laakiin dulli inaan ku noolaano ayaa nasiib darro ah arrintaan waxaa laga dilay dawladihii la soo maray midna kama iman sidan markay wax dilayaan dad soo jeeda oo ay maxfal keenaan ay ku dili jireen si tuuga ah inay guryaha saqda dhexe kala baxaan maxamed siyaad barre oo diinta ugu fogaa wixii madax dalka soo maray asaguna sidaan waxba dilin inuu barqo keeno dad uu toogto mooyaane intuu guryaha kala baxo oo yidhaahdo lacag keena oo yidhaahdo moobeeladiina dhiga halkan oo yidhaahdo akoomadiina nambarka ii sheega oo yidhaahdo lacagta lagama saari karo akoonkan oo lacagtan akoonkan lama bedeli karo intay yidhaahdaan oo weydiiyaan laaluush iyo lacag raggii weydiiyey waa nool yihiin ma cararin waa joogaan waxaa laga xukumaa taliska booliiska Soomaaliyeed ayaa laga xukumaa iyagaa laga soo diray ayagaa yidhi taliyaha meesha ugu sarreeya adduunka sharcigu wuxuu dhigayaa booliiska iyo militariga sarkaalka ugu sarreeya meeshaas inuu mas'uul ka yahay waa laga wareejiyey waxaa la yidhi waa ka madax bannaan tahay dadka soo gad dadka lacag ka soo aruuri ayaa la yidhi wax kaleeto kuma dhiman Sheekh Cali lacagtaas iyo waxbuu sheegi doonaa oo waad ka warrami doonaa dhibka aad u geysateen ayaa lagu dilay ilaahay waxaan rajaynayaa in uu ilaahay baras iyo juubdaan iyo cudur aysan ka kicin wixii ku lug lahaa hawlahaas iyo wixii fududeeyaba inay ku dhacdo waxaan u baaqayaa odayaasha iyo culimadiinka ku nool magaalada haddaydan adigu u talin haddaydan iska celin maalinka laydin laayay maanta ma ahayn maantii qorqor laydin soo dhisay bay ahayd maalinkii ninkii la rabo la soo dirsaday oo xoog lagu dhisay ayay ahayd maalinkaasaa laydin laayay barmigeydhadiina in la laayo maalinkaasaa lagu talagalay markaad iska celin weydeen markaad ka gadoodi weydeen markaad ka tashan weydeen waxaan idin leeyahay degdeg isugu imaada wixii qorqor soo dhisay ayaana dilay oo Sheekh Cali dilay ogaada meel kale kama imaan wixii kale soo raacay waxa weeye waa xijaar iyo raggiisa ayna ilaahay raajicuun maanta dadka halkaan isugu soo baxay daraad waxay isugu hayeen farxad iyo iid laakiin muruga isku bedeshay waxaan indhaha laga riday gobolkii waxbarashadii agoontii ayaa indhaha laga riday waxaan caddaynaynaa Sheekh Cali ilaahay ha u naxariistay muumin ilaahay inuu ahaa si xaq daraana lagu dilay si xaq daraa in lagu diraa caddaynaynaa dadka shacabka oo aan xildhibaanka u nahay ee nala hadlay ee dawladda la hadlay waxaan u ballan qaadaynaa anoo afka dawladda ku hadlahayo warkaas inaan ka soo jawaabno wax qarsoonna ma jiraan Sheekh Cali meesha laga dilay waa la ogyahay annagaana jawaabtaasna la ka sugayaa hadday tahay madaxweynaha hadday tahay wasiirada hadday tahay xildhibaanada dhammaan baana la ka sugayaa hortiina waxaan ka amrayaa gubernatooraha gobolka ugu horeeyo iyo duqa magaalada taliyaha qaybta laamaha amniga wax ma qarsoona shiiqaas dadkii indhaha ka riday magaaladan shareecada islaamka maxkamadda in la keeno ayaan faraynaa annaguna arrintaas annaga qaadaynaa haddii ilaahay qadaro ilaahay shiiqa ha u naxariisto maantoo kalaa samirka loo baahan yahay inna allaha maca saabiriin ha la isdejiyo annagu waxaannu ballan qaadaynaa annagoo dawladda ka wakiila ciddii arrintaas ku lug lahayd sharciga in la hor keeno dadkana intaasaa deeqda masiibadu waa dhacaysaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun in la yidhaahdo wey waxaan ballan qaadaynaa galmudug inay soo gurmato annagu dawladda hadda Soomaaliya ximin kama hayna annagu waxaan hadda wakiil ka nahay shacabkan galmudug baa xildhibaano u nahay inaan madaxweynihii iyo wasiiradii dhammaan halkaas ummadda inaan isugu keenno ayaan ballan qaadaynaa arrintaasna laga jawaabo waxaan kaloo idin leeyahay walaalayaal dhib waa dhacaa laakiin yaa nala kaga darin dadka mucaaradnimada geerida Sheekh Cali nagu dhacday oo indhaha naga riday dadka mucaaradnimada ku daranayaan ha ka joogeen in nala kaga dara maahan maamul baan haysanaa laakiin dhibaataa nagu dhacday in la isaga dara maahan arrintaas waxbaan ka qabanaynaa waa u istaagaynaa meesha Sheekh Cali nooga yiila ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warqaba
ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warqaba annaguna waa taagnaanaynaa ilaa shalaan taagnayn markii horaan taagnayn waxaan caddaynaynaa dulmi inuu dhacay waxaan caddaynaynaa inaan qabiil loo dilin sheekh cali dawladda Soomaaliya oo annagu haddaan nahay galmudug aan xibinta ka nahana waxa islaaxa dhibkooda xaggoodu ka yimid waan la soo cadayn doonaa haddii ilaahay qadaro aad iyo hal la isdajiyo hal la samro arrintaas shariicada halkaas la keenay haddii ilaahay qadaro gudoomiyaha gobolku waa maqlay waa fadhiya duqi magaalada waa joogaa dadka dhammaan waa joogaan arrintaas aan taliyaha qaybta arrintaas hana la kugu sino masiibo waa dhacaysa laakiin inaan ka jawaabnaa rajaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم ما أنت وحي هيد مالين عيديد مسلمين توحي أطهي مالين فرحديد نصيب ضرو قبل كمودو جارهان مقالدي سقال كعي وحي أطهي مالين مروغو مالين حنون بدن إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحلا ياب لوي صوماليدو waxay ku mahmaahdaa hadii qayl yeerta xagee loo carara waxa la yiri masaajidka isagii bay qayladu ka soo yeertay amniga kala dambeynta sharciga ilaalintiisa sharciga sarreyntiisa dawladda laga rabaa booliiska laga rabaa laamaha amniga laga rabaa maxkamadda iyo garsoorka laga rabaa haddii iyagii qayl ka soo yeertay xagee loo cararaya dadku xageeba isku aaminayaan waxaan aad uga xunnahay cod dheer aan ku leenahay amniga la siyaasadeeyay waa ka xunnahay waa ku celinaynaa amniga la siyaasadeeyay ee gaar ah mididu u xiirayso waa ka xunnahay mana aqbalayno waa siyaasadaysan yahay xaqiiqo cad weeye sababta loo siyaasadeeyay ma garanayno mas'uuliyiinteedu ayaga ka jawaabi doona laakiin qof in la soo xiro dembi aan lagu xaqiijin lagu cadayn maxkamadi aysan dembi ku cadaynin oo markaas aan dil lagu xukumin in la iska dilo oo la yiraahdo qofka waa la dilo oo waliba ciidankii dawladda iyo dadkii oobiga ka qorayay dadkii warbixinta ka qorayay gacantooda asagoo ku sugan oo haddana ku dhinto oo xabada lala dhaco baabuur buu iska tuuray maahan neef qabatu u dhintay maahan xabadihii baa ka muuqda jirkiisi baa xabada jarjareen gacan dawladeed buu ku jiray markii noogu dambaysay xafiis dawladeed baa soo watay qalin dawladeed buu ku sugnaa see u dhici kartaa shacabka kale maxaa laga sugaya haddaan dawladdii amnigii ilaalin haddaan dawladdii kala dambayntii ilaalin haddaan booliiskii kala dambayntii ilaalin dadka kale maxaa laga sugayaa dadka kale waxay noqonayaan inay fawdada dhinacooda ka sii wadaan waxaan leenahay arrintaas waa lagu khaldamay qofkii ku khaldamay iyo dadkii ku khaldamay in sharciga la hor keeno waxay mudan yihiinna la waafajiyo ayaan codsanaynaa waxaan rabnaa oo kale guddoomiyihii gobolku waa joogaa xildhibaanadii waa joogaan maayarkii waa joogaa ku-xigeenkiisii maayarka ku-xigeenkiisii baa jooga ku-xigeenkii maayarkaa jooga waxaan leenahay maayarka haddii ku-xigeenkiisii jooga asagiina waa joogaa waxaan leenahay dadka gacantooda lagu ogaa sheekh cali ee weli bannaanka jooga ee weli ku raaxaysanaya dabaysha ee neecawda cabaya ee si fiican oo xora u jooga gacantoodana uu ku maqan yahay sheekh cali xaq ma ahan inaa maanta nala soo hor istaagtiin dadkiina bannaankay joogaan gacantooda lagu ogaa adinkuna raalli ahaado isqaboojiya macquul maahan waxaan ka rabnaa mas-uulaa noo tihiin dawladdii baa noo tihiin adinkaana matala nimankaas waa in sidii sharcigu yaqiinay sidii sharciga booliiska lagu yaqiinay sidii nidaamka lagu yaqiinay gacani waxay qaaday baa lagu leeyahay iyagaa soo qaaday iyaguna ku maqan yahay waa inay xabsiga galaan marka hore
inta baaritaanku socda ayagana waa in baaritaan la geliyo laakiin nimankii halkaasay dhooban yihiin lama taabanayo shacabow isdejiya waa la khayri doonaa sasabaadaas macquul ma gudoomiyaha gobolkan codsigaas u jeesanaynaa amniga gobolka isaga ugu sareeya maayirka ku xigeenkiisa jooga isaga ugu sareeya taliyihii baa jooga qaybta waxaan codsanaynaa dadkaasi horta in sharciga loo sinaado iyaga lagu ogaayay intay meel kaga sheegayaan in ayaga la hayo midda labaad waxaan leeyahay maxkamad aan shaki laga qabin baaritaan aan shaki laga qabin baaritaan aan dhinac u rarnayn maxkamad aan dhinac u rarnayn waa in la keenaa gobolkuna uu ku qancaa arrintaas iyada hab maamulo in loo galo bulshadu waxay ku qanacdaa in mas'uuliyiintoodu wax cad ay soo hordhigaan sidaa kaliya ay ku qanci karaan laakiin raalli ahaada isdejiya oo wixii waa dhaceen waxaas qanac maahan shalay waxaan maaragtay maqlaynay halkan waxa lagu dilay Sheekh Cali Abiyara lagu dilay maxaa laga qabtay odayaal ba halkan maaragtay muhiim ah lagu dilay iyo saraakiil maxaa laga qabtay maalin walba gacan ku dhiiglaha iyo dhibanuhu inuu inta hortayada dadka ku laayo haddana uu ku raaxaysto mas'uuliyad ma ahan mana ahan mas'uuliyadda qaranka loo qaaday mas'uuliyadda state-ka loo qaaday ma ahan waxaan rabnaa dhammaantiin in inta u istaagtiin mas'uuliyiintu qof waliba waajibaadkii uu lahaa lagula xisaabtamo wixii uu mutaystay la siiyo wixii uu xaq u helay in la siiyo hadduu ciqaab leeyahay iyo hadduu cafis leeyahayba intaasaan codsanaynaa wuxuu ku saabsan yahay dulmigii ka dhacay gobolka kan oo lagu dilay Sheekh Cali Dheere laguna xiray xaqdarro muddo 12 bari ah gurigiisana lagala baxay asaga iyo caruurtiisina lagu dhibaateeyay markii dadkii sidaa sameeyay cuqaashii mas'uuliyiintii waxgaradkii culamaa adduunkii gobolku ay yiraahdeen war dambi hadduu ninkaani leeyahay la soo bandhigo haddii kalena dulmigaani ummaddan mana qabto mana gayaan mana nooleeyaan dadkii diiday oo iska daba wareejiyey oo beeca ku raadinaya Sheekh Cali Dheere ayaa maxaan ku raahdaa banaabaxa kan sababay tii ugu dambaysana uu ku dhintay waxaan rabnaa inaan dawladda galmudug ee waddanka kan mas'uuliyaddeeda loo idmay oo mas'uuliyadda galmudug loo dhiibay madaxweynaheedu madaxu yahay Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor inaan fariin u dirno federaalka aan fariin u dirno ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dulmiga ka dhacay gaalkacyo ee lagu dilay Sheekh Cali Dheere waxaa mas'uul ka ah dawladaha kala sareeya midda gobolka maamul goboleedka galmudug iyo midda heer federaal ayaa mas'uul ka ah waxay keeneen dad mooryaan ah oo aan dawladnimada ka dhaadhacsanayn una carbisanayn standardkeedna aan lahayn bay gobolka keeneen waxayna maxaa bannaysteen dadka dhiiggiisii iyo dhaqankiisii bay bannaysteen dulmiga halkaa ka dhacana iyagaa falkiyey wuxuuna ku dhacay mas'uuliyad dawladeed buu ku dhacay dawladda waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha gobolka ka codsanaynaa oo ra'iisul wasaaraha ka codsanaynaa oo madaxweynaha federaalka ka codsanaynaa cadaalad in laga sameeyo kiiska halkan ka dhacay oo lagu dhibaateeyey ummad dhan laguna dilay ummadda maxaan ku raahdaa indhaheedii iyo fikirkeedii lagu dilay ayaan rabnaa inaan ka codsanno in cadaalad loo helo inay si maxaan ku raahdaa degdega jawaab looga bixiyo haddii dadkaani uu idin yahay dad macno idinkugu fadhiya waa inaad dulmiga ku dhacay aad jawaab ka bixisaan munaasab u ah intaas baan annagu odayaal ahaan iyo ka cuqaal ahaan iyo ka deegaan ahaan aan codsanaynaa intaasaan rabnaa in si degdega looga jawaabo madaxda gobolkaan la hadlaynaa madaxweynuhu ugu sarreeya wasiirrada dadkana matalahaya oo xildhibaanada noo ah baan la hadlaynaa wasiirradana matalahayaan la hadlaynaa madaxweynahaan la hadlaynaa gobolka waxaan la hadlaynaa kuwa federaalkaan la hadlaynaa mas'uuliyiinta federaalkaan la hadlaynaa taliyaha booliska Soomaaliyeed baan la hadlaynaa xijaar baan la hadlaynaa dulmiga ka dhacay gobolka midug magaalo madaxdeeda gaalkacyo oo dadkii lagu qalanayo oo guryaha loogala baxayo oo qof aan dambi lahayn dambi loogu baarbaarayo oo dadka lagu ganacsanayo oo maxaan ku raahdaa sumcadda dadka looga dilayo oo qofka maxaan ku raahdaa dulmi looga samaynayo waxaan rabnaa in loo helo xal waara oo gobolkan ka dhaca dadkaani dawlad ma diidana laakiin waxay diidan yihiin dulmiga waddankan ku bilowday ee maxaan ku raahdaa dadka lagu dhibaataynayo ayay diidan yihiin isku soo baxaana aad u jeedaana wuu soconayaa meydkiina wuxuu noogu yaallaa tallaagad buu noogu jiraa in cadaalad loo helana maahana la duugi mahayo
jawaab dawladda inaan ka helnaa rabnaa ba isku soo bax iyagu waa isku soo bax nabadeed weeye waa bandhig shucuurta dadka kan lagu muujinayo weeye waa bandhig lagu diidan yahay dulmiga gobolkan ku bilowday waa bandhig lagu diidan yahay xaaladda hadda aan ku jirno mana ku sii jiri karno mana ku noolaan karno mana aqbalayno waxna qabtana ma ahan jawaabteedaan ka rabnaa dawladda kala sarraysa ilaa heer goboleed ilaa heer maxaan ku rahaa federaal baan ka rabnaa waxaan idinka sugaynaa jawaab degdega waxaan idiin sheegaynaa dadka halkan ku nool inay diyaar u yihiin dawladnimada iyo kala dambaynta hubkayagii baan wareejinnay ciidamadayadii baan wareejinnay waxaana la kugu soo beddelay dad cadaawad riman oo qabiil maxaan ku rahdaa dad ku aanaynahaya ayaana la kugu soo beddelay kuwayagina waana la ka wareejiyey ayagii baa dhibaatada tan geystay waxaan ka afeefanaynaa inaysan jirin wax qabiil la yidhaahdo oo shacli dheere lagu dilo ma jiraan wax qabiil la yidhaahdo annagu aan cuqdad u qabno oo beelaha soomaaliyeeda ma jiraan soomaalidu waa isdili jidhay waa xaajaysan jidhay nabad iyo maxaan ku idhahdaa maslaxad bay wax walba ku dhammaysan jireen khaasatan beesha leel kasta iyo sacad wax dhibaato ah oo dhexdeeda yaallaa ma jiraan iyo waxaan u qabno waxaan rabnaa warkayaga in la fahmo annaga dulmiga nugu dhacay wuxuu nooga yimid dawladda goboleedka maxaan ku idhaha galmudug iyo midda federaalka dawladdu nooga yimid dawladdaana dulmisay dawladdaana dishay dawladdaa dadkayagii maxaan ku idhahda birimagadeeda ahaa dhibaataysay ayagaan jawaab ka sugaynaa annagu qabiil ma ahan waxa allayna shaqana kuma lihin puntland iyo galmudug ma ahan leelkasta iyo sacad ma ahan waxa aan ka hadlaynaa qadiyad ka weyn weeye dhibaato waddankan lagu soo furay oo nagu bilaabatay oo ha ku dhex jirno weeye waa in jawaab laga bixiyaa waafiya oo u qalanta waxaa nugu dhacay taas baan rabnaa inaan helno isku soo bax iyaguna sidaas weeye dadka inta layska diro oo layska dulmo oo layska gato oo layska dhibaateeyo oo dad maxaan ku idhahdaa huduriina la soo diro inay ummadda ku sii noolaadaan dhexdeeda mana u dulqaadanayno manana qabato waana ka dhiidhinaynaa waana maxaan ku idhahdaa ka jihaadaynaa haddaana helay xaquuqda aan xaqa u leenahay waxaan rabnaa dawladuhu inay arrintaa faragelin ku soo sameeyaan in cadaalad la helo dadkan waxaa lagu dejin karaa in cadaalad la helaa lagu dejin karaa intaas baan codsanaynaa aad iyo aad baan u mahadsantahay dadka halkaas ugu soo baxay ee xaqa maxaan ku idhahdaa ka hadlaya soona bandhigahaya wabilaahi tawfiiq